magaalada Burco waa caasimadda labaad ee Soomaaliland waana xarunta gobolka Togdheer oo ku caan ah si weyn dadkiisu ugu tiirsanaayeen xoolaha nool balse hadda abaarta jirta ay meesha ka saartay isticmaalka hilibkii caanaha iyo subagii xoolahaasi waxaana taas bedelkeeda muddooyinkii u dambeeyay magaalada Burco ku soo badanayay hoteelo u gaar ah oo lagu sameeyo hilibka kalluunka kuwaas oo isku dayaya inay buuxiyaan kaalintii ay xooluhu ugu jireen bulshada Burco haddaba mar aanu goor habeenimo ah booqonnay hoteelada u gaarka ah ee lagu sameeyo hilibka iyo cuntooyinka kalluunka waxaanu waraysiyo kala duwan la yeelanay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta iyo shaqaalaha hoteeladaasi oo nooga xog warramay shaqadan ku cusub magaalada Burco. Jaamac Axmed waxaan ka mid ahay maamulka shirkaddan kalluunka waxaanu bilownay kalluunka intii abaaru jireen taasoo kaliftay markaan aragnay dalkii in muhiimad gaar ah leeyahay kalluunka taasoo aan doonayno inaan u soo kordhino magaalada iyo dadka ka barno kalluunka marka waxa weey maadaama xoolihii bixaan wayna kalluunkii isticmaalo waa khayraad marka ma la oran karaa markii aan xoolihii ay dhamaadeen hilibkii la waayay ayay tan noqotay fursad shaqo inay kalluunka aad ku bedeshaan halkii hilibka taas waa ka mid bay ahayd ujeedooyinkan markaa ku aasna ka mid bay ahayd maadaama disaan meeshii gaab soo bixin maadaama ay ka bixeen xoolihii ka bixeen si aanu gaabka doo buuxino ayaan waxaanu sameynay in aanu keeno kalluunkii keeno taasoo dhimka magaalada ka arkayso isticmaalayso oo xoog doo isticmaalayso ilaa maalintii baxayaan 200 kiilo 100 kiilo 150 marka halkaas ka arkaysa jaaniska weyn ka soo dhaxay hadda meeradan waxay gaar u tahay kalluunka ay aad gaar u tahay waayo waxa meesha ka baxay oo hadda aan lahayn arigii baa ka baxay oo geeli baa ka baxay abaari hadda waa tan dhaceen kalifay marka kalluunka hadda waxa kalifay baahi weyn ba hadda ay dadkii hadda u qabaan waayo hadda kalluunkii ayaa hadda wuxuu galay halkii ariga iyo halkii geela kalluunka ma dadka suuqun ba ka iibsanaydu soo maraa mise qaybo kala duwan buu leeyahay horta marka hore laba siyabood baan kalluunka u iibinaa subaxii waxaan u iibinaa xaafadaha iskale oo magaranaysa xagga quraacdii oo mitaran oo kale quraacdii ay ka sameyn lahayn halkii ay ka sameyn lahayn hilibka ama beerka oo kale ay kalluunka ku bedeleen caqabadaha ugu weyn hor yaalla waxa weeye wax kale leeyahay horta ma yaalin dawladuna xilba iskama saarin ya dawladdu xilba iskama saarin khayraadka badda maanta anu waxaan aaminsanahay maadaama xoolaha ay niil yihiin oo yaraadeen waa abaar balan dhacday in xoolo kale malina xoolaheenu waa xoolaha kale badda ku jira kalluunka marka haddii dadaal weyn laga galo dawladdu iska saarto xil weyn iska saarto oo ay gaadiid soo iibso oo qalab soo iibso oo dhul kayd wax lagu kaydiyo ay samayso in dad badan ay fursad u noqon lahayd arxim magacaygu waa maxamed caawil saciid oo ku magac dheer iito maxamed caawil hadda wax joogtaa meeradii barwaaqa fish kalluunka waad ka cashaynaysaa maxaa dalbatay waxaan dalbaday casho kalluuna kalluun iyo maca bariis baasto wixii qofku any kind uu qofku doonayo ayuu ka helaa marka aanu kalluun baan imka caaw cunaya ayuu Cabdirashiidkaysa Xasan Cabdirashiidkaysa maxaad ku cashaynaysaa waxaan ku cashaynayaa kalluun maxaad dalbatay noocma kalluunka dalbatay waxaan dalbaday tuna fish baan dalbaday markii hore maxaa kugu kalifay inaad cashadan kalluunka aad cunto wallahi markii hore reer Burco ahaan anagu waxaan cuni jirnay hilibka geela marka imika haday xoolihiis ka soo yaraadeen kalluunkan habeenka ku cashayna si kastaba ha ahaatee hoteeladan yaryar ee u gaarka ah kalluunka ee ku soo badanaya magaalada Burco ayaa ka mid ah fursadaha shaqo ee abaari keentayda ah xilli ay daba dheeraatay abaarta ka jirta gobolka oo meesha ka saartay isticmaalka hilibkii xoolaha Xabiib Ciga Xasan Universal TV magaalada Burco.